الرحمن الرحيم maanta halkan waxaa lagu hayaa abaabulkii iyo waxqabadkii mudaharaadkaas oo salka ku hayay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo halkan isku dishay ilaa iyo 19 cunug sida la ogyahay intaan ognahay laakiin gobolada iyo tuulooyinkuna waa ka badan yihiin maadaama dhibkaas aad iyo aad u taabtay hooyooyinka Soomaaliyeed iyo macaa Swedishka dalka wadanka degan ayay hooyooyinka Soomaaliyeed is abaabuleen ayagoo dhexda xirtay go'aanna gaaray ee gaar ahaan Faadimo Maxamed Tooraysa Faadimo Maxamed oo ka shaqeysa Lanstinga qaybta caafimaadka Sweden ilaa iyo 200 oo qofna uu ah madax oo dadka shaqo gelisan gabdhaha dhalinyarada ayaa aad iyo aad waqti badan u gelisay ayadoo aan waxna ka qaadanaynin ama marka ugu shaqeynaysa si freevilliga marka Faadimo wiiga gaan oo dhan inay daawo aad bay u daalan tahay aad bayna u shaqeysay TV badan iyo joornaal badanna way ku soo baxday isbedel baanan hadda xaafadii ka garanaynaa siday gabadhaas u dadaashay inkastoo dad badan oo ay gadaal ka xigeen oo walaalay shaqeey laakiin Faadimo aad iyo aad ayay wax u qabatay ilaahay ajir iyo xasanaad ha ka siiyo marka maanta halkaan ayaa nimid tabeelayaashii baa la qorhayaa Soomaalida marka adduunyada dacaladeeda jooga daafahooda waa inay dumarka Soomaaliyeed isku xirnaadaan oo kacaan oo caruurta si un la yeelo oo wax la qabto dalkiina waad u jeediin ragga Soomaaliyeedna Allah soo hanuuniyo dhalinyarada Allah noo soo hanuuniyo Faadimo marka waraysi yar ka qaadanayna oo muhiim ah insha Allah ay Faadimo marka abaabulkan iminka la wado runtii aniga kulamaada dad badan ayaa wada Saacadiya ka mid badahay dadkii soo abaabulay aniga iga naftigeyga yeeray sabab ay yeeray soo wacday oo imkeen la fadhidan marka runtii hooyooyinkii baa dhibkiiba qaabtay hooyooyinkii marka dhibkii qaabtay bay kulligood wada kaceen way qeyr kaceen baan oran karnaa marka muhiimadda ugu weyn ama maaragtay higsiga waxay higsanayna ugu weyn waxa weeyaan in waxaan la joojiyo diigan daadanaya la joojiyo in carruurtana badbaado inta dhimatay waa dhimatay lahayn xariisto inta nool sidii lagu badbaadin lahaa in flowga noqoto in carruurtan istilaysa inagu badhalay maaragtay la heshiisiyo dhibka dhex yaala in la xalliyo waalidiintan iyo hooyooyinkan maaragtay dhibaatada haysatana ee murugaysan ee aqalada jooga ee ooyana taraamada qaba trauma ku dhacay in maaragtay iyagana maaragtay caawiyo sidii lagu caawin lahaa flowgeed la galo marka iminka berri toole khamiista berri waa arbaco soddonka bisha sagaalaad guriga waxaa la tegayaa guriga dowladda waa la bannaanbaxayaa bannaanbaxaasna umad badan ayaa isugu imaanaysaa inta waxaa diiwaan gashan 400 oo qof inay imaanayso oo tidhi waan imaanayna oo cid walba leh Soomaali maaha Soomaali kuma jirto Soomaali kaliya maaha yani cid walba ay leedahay marka waxaan rajaynaynaa isbedel weyn oo aad iyo aad u weyn inuu dhici doono waana xilligii doorashada sanadka dambe ah ayaa lagu jiraa waa xilligii siyaasiyiintu maaragtay is abaabulaysay is diyaarinaysay marka arrintan kacdoonka ah iminka xaafadaha ka jira runtii walwal iyo walbahaar badan bay gelinaysaa siyaasiyiinta marka kuwii wax ka qabanaya iyo kuwii wax ka qabanayna markaas ay soo bixi doonaan laakiin Soomaalida waxaan ku waaninayaa waxaan aad iyo aad Soomaalida ugu waaninayaa siyaasiyiintu ay ka faa'iideysan siyaasiyiintu waxay idin ballan qaadi doontaa iyaga danahooda wata waxay idin ballan qaadaan oo ogolaanina doorashada kadib in wax la idin qabto waxba la idin qaban doono haddana 3 sano oo kale ayaa la idinka aamusi doonaa dabadeetna sanadka ku sii xigo oo doorashada wixii nool ayuu baahdan barkoodii ka meesi doonaa marka wixii aad hadda u baahan tihiin in la idin qabto iminka waa in la idin saxeexo oo wax looga la og yahay aad maaragtay teeda kale codkiina waa inaad midaysiin Soomaaliya mar uun midooba noloshiina wad macaankeeda wada arki doonto midnimadu waxay tahay haddaad intaad isu wada idinka dhan isu wada tagtiin wad qolayska yaray lowday qol sanad qurun qolayska ilooba qolayska ilowdin aad midowdiin isu ruusatiin codadkiina xisbi qura wad ku xitaa wad ku gurgurtami kartiin wad ku gurgurtami kartiin war xisbigeeda waxaan noo sameynaya oo intana cod siin iyaga ku dagaalamaya marka Soomaaliya mar qura inta isku xirantiin bal mar qura midoobo oo bal midanimadeena mar uu ku cuno تفرارق اسكداي تفرارق وحما سير لوغا بخي كرا تفرارقان aad buu noo saameeyay تفرارق دل iyo dibadba see looga bixi karaa
adaaba aad gabar mutacallimada wax barato tahay tafaraaruqaas ummadaha ilaahay oo dhan tafaraaruq bay ku jireen waddankan aynu deganahay marbuu tafaraaruq ku jiray marbay lahaayeen dabaqado marbay lahaayeen xisbiga social democratic lagu sheegayo oo xisbiga ururka shaqaalaha waa dadka dhulka yaale maatada ah xisbigoodii xisbiga santa partiga lagu sheegayo waa xisbigii waxa la yiraahdaa bunda partiga kale waa xisbiga remiga dadka remigooda xitaa xisbi samaysay xisbigan Christian Democratic waa xisbigii kaniisadaha weeyaan marka ummaddu weligood tafaraaruq ku jirta imkan xitaa Sweden dabaqadaha jira adduunka oo dhan dabaqada way jiraan laakiin ummaddu xirnaanshaha ka muhiimsan waxay uga gudubtay arrintii tafaraaruqa waxay uga gudubtay qof walba dantiisu ka arki waayay tafaraaruqa wuxuu arkay qofna inuu farkali farma dhaqdabay waxa la arkay inuu qofna wax la qabsan karo danta guud marka la mideeyo ayaa danta gaar ah qofku samaysan karo anigu dan gaar ah ma samaysan karo haddaynan inagu danteena guud ayna samaysan ma qaatay marka waa muhiim inaad danta guud samaysan danta guud maxaa kamid ah inaan iskoolaha hagaagsan helno in maxaa la jiray waxbarashada dadku hadday aqoon iyo waxbarasho leeyihiin danta guud way fahmayaan laakiin aqoontu intay daciifkay naga tahay danta guud ma fahmayaan marka dadku inay aqoontooda dhisaan aqoontu waa inay aad iyo aad u dhisaan aasaaska aqoonta waa inay aasaaska iska dhisaan waa inay maaragtay kalsoonaadaan kalsooniduna waa wax aad iyo aad u muhiim ah waa inay iska daayaan qofkan qola inay isku xidhmaan iyo maaragtay waxaan grubeerinkan iyo waxaan inay iska daayaan dadkan isku xidhan kooxda isku xidhan inay iska daayaan baa wanaagsan oo ay ummadda Soomaaliyeed ay iyagu koox noqoto ma fahantay oo iyagu midoobaan noqdaan oo ka bacdina ummadda Afrikaanka ah dee la kaashadaan waayo weligoodba dee Afrika iyo Soomaaliya Afrika way ku jirtaa marka Afrikaanka xitaa waxay jirta wax la yiraahdo Afro-Svenska waan ku jirnaa laakiin dad kale oo Afrikaan ah ayuunbaa dee ku shaqaysta Soomaalida inta ku jirta way yartay wadad kuma malaynayaan baa inay ku jiraan may qoraysaa marka waa muhiim arrimahaas oo dhan maaragtay in maaragtay Soomaalidu inay mar walba dhagahooda furto oo dadka yaryar carruha yaryar ay marka dhalanayaan aanan qolo la barin qoladooda marti iska daayay waxay kala qoqobay idin kala daadiyay idin kala rafaadiyay waa qolada bilaa caleen iska daayay qolada ilaahay uu ka yaabo qolada iska daayay oo mar walba oo wax qabsadooda hooyooyinka Soomaaliyeedna si gaar ah iskugu xirnaadeen meel kasta ay joogaan ayaga u wax soo saari kara Soomaaliyeed waxaan oran lahaa waxbarashadu waa bilaash tiir u joogto jaanis haysata waxa barato da'na kuma xirna waxa ka soo konton jir jaamacadda fadhiya 60 jir jaamacadda fadhiya 70 jir jaamacadda fadhiya waxbarashadu ha oranin maxay iga galay waxbarashada waxba ku shaqaysanayna ha oranin waxbarashada at least inaad wax fahantiin oo wax kala garatid oo systemka waddanka fahantiin oo adduunka xitaa hawada nisay u shaqaysanayna fahantiin wax walba ka weyn dadkiina aqoonta lahana waxaan oran lahaa ilaahayna ka yaabo qabriga ha la gelinay dadka uga faa'iideey qaab waxa weydiin umada walaalihiin ha qaabinay soo baxo umada caawiya oo waxbara oo gacan qabta umada oo idinkuna ogolaada oo isku xidhnaada hadda xaafadahan oo kale Faadumo tenista iyo Rinkibi iyo Yulista iyo dadka aqoon-yahanada hadday hameenka xataa dadka seeraalo u dhigaan dad badan baa waxa jira aan waqti u hayno ilmo yar yar haysta laakiin habeenkii oo kale odayaashu shaqada ka yimaadaan oo ilmaha u hayn karaan 2 saac oo waxbarasho hadii la siiyo midii xisaab rabtay midii xoogaa luuqad rabta iyo wax u loo qabto taa xataa waa wax muhiim ah taana anigu waa ku darahayaa wixii markaas ilmuhu qofka ilmuhu markaa u korona aqoontiisa hore asagoo hawsa si dhiso ما شاء الله تبارك هذه أدود ما تسوين صراحة نلتوي صباحية ما يعني سؤال بن تقدر سنة يا فاضل مو أنا أتفضل يا منارة بصور هاي صور مرة بتدها يعد كاجا هلا مغلا هاي أنا وحنيه صباح علي حسين ما شاء الله تبارك أنا وحنيه لها ما كنت دوباي أنا وحنيه لها هلا اسمحي هيدا ينتشر هلا ولا لوبو ولا لا يستاشر ومد لكن waxaan dhihi lahaa istuulada ka dhisan keenista Rinkibi waa in ay hooyooyinka u fiirsadaan annaka barigaan luuqada aqoon wax fahmaysan heelka wixii nadi dhacay baa ka socda in istuulada xaafadahan ku yaala hooyooyinka ilgaara la sayro macallimiinta weydiiyo waxay soo baratay iyo shahaadooyinka taa laakiin waxaad ku ogaan kartiin hadday hooyooyinku markuu cunugu iskuulkiisa aado aysa ka harin oo wiigiiba ay mar riboodka soo qaadato cunugu intuu saarnaa daqiiqadoo maqnaa intuu iskoolka suu uga daahay
laakiin wax kuu imaanaya male caruurta waxay leedahay qof maxay ahayd mentor Soomaaliga maxaa lagu dhahaa mentor qofka xiriirka waalidka iyo sooma maxaa lagu dhahaa maya inta badan ma aragtay alla xiriirinaye waa kaas wadda halkaas ay noogu dhigtay ma sha Allah Faadumo waraysigeed iyo Sabaax in sha Allah ka faa'iideysta waraysigaas doctoreysada